بسم الله الرحمن الرحيم. ولا ليال وان إذن سلام يا لمان أمد الصومالي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. dadka soo galay codkaygu okay ma yahay walaalayaal insha Allah ii sheega hadaa ay maqlaysaan وعليكم السلام. اوكي وما هتسنتي عبد الرحمن. اوكي بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لمان أمد الصومالية والسلام يا وحن ربا إن شاء الله تعالى مانت إنان إذن لقيب سادو وحيرو أركتدا إذا سيدي إن شاء الله تعالى أن مررك قار إذن لقيب سنشري ومهدسنتين أمد الصوغ الشي waxaan rabaa maanta inaan ka hadlo number 1 inaan ka hadlaan rabaa madaxweynaha Soomaaliya booqashada uu ku joogo Puntland iyo waxaan rabaa inaan ka hadlo insha Allah ay soo wicin walaalo iyo waxaan rabaa insha Allah tacaala inaan ka hadlo madaxweynihii hore ee dowlad goboleedka Puntland Cabdiraxmaan Faroole warbixino laba ah oo iska daba yimid oo uu ka bixiyay magaalada Garowe. إن شاء الله أنت صار مانت إن أنك هذلو ضدك صاق لي ومهدسنتهين سين الشرقري إن شاء الله تعالى ومضى دن يقول جارته ولا على الهرت ومضى الصوماليات آد بيمانت النصيب أولى هذا هرنت مكان إذين شاقه نصيب بانولين هاي سببت وحيته هاي أن مدسوجيني ونقصوا هاي بان إلهي سبحانه قادر همانت ونسيي waxa weeyaan madaxweynayaal waan haysan jirnay Soomaaliyeed maxaa Cabdullaahi Farmaajo madaxweynayaal badan ayaa ka horeeyay oo soo maray wadanka ama ku meel gaar ha ahaadeen ama markii ku meel gaarnimada laga baxay ha ahaadeen laakiin Soomaali hadaan nahay wixii aan mar walba tabayna walaalayaal waxay ahaayeen waxaan tabi jirnay shacabkan tabi jirnay shacabka wadaniyadooda iyo wadnaha shacabka iyo daacadnimada shacabka ee dawladda u qabaan ayaa naga maqnaan jirtay maanta marka insha Allah waxaanu ku guuleysanay oo Ilaahay mahad aan u celinaynaa in intii aan helnay oo shacabkii maanta ay sheekadu ay ka soconayso meesha ay sheekadu ka dhaqaaqayso oo shaagu ka rogmanayso maxamed cali soo dhawo walaale meesha ay sheekadu shaaga ka rogmanaysa maanta inay tahay waa shacabka Soomaaliyeed horta Ilaahay bay mahadda u sugnaatay إن شاء الله تعالى ما أنت واد أركيسان صومالي هيرك إيتاجنتهاي ما أنت واد أركيسان صومالي ودنني مدادي يوونه هذه قبيلة دي إن لقيت تجي يا شعب كيسيدو أمي دوبي يا شعب كداعدني مضوضة يوحد الحمد لله رب العالمين صدق سنة أنسويني ما أنت وان هينا هيسكتشر عن ضد يقول دنا جارة وطا هيسكتشر عن ضد حوجا ماركتي دين دابيه يو لجوريتشين وده لكن وحلا فيرنا majority gaan fiirinayna waa ku salaamay dhammaan dadka hadda soo galay majority gaan fiirinayna walaal majority-gu waxa weeyaan maanta shacabka Soomaaliyeed waxay noqdeen shacab raba maanta ay ka go'an tahay runta markaan idin sheego qarannimadu ay ka go'an tahay dawladnimadu ay ka go'an tahay wanaagu uu ka go'an yahay waxaana ku cadeynaya meel walba ay joogaan wax riisana iyagoo aan wadanin ayay waxay u taagan yihiin dawladnimadii u taagan yihiin say isugu gurmanayaan waad aragteen madaxweynaha waad aragteen walaalayaal meel walba markaanu ka soo bilowno shacabka xanar ama koonfur jooga markaanu ka soo bilowno waa madaxweynaha meeshii laga soo doortay iyagaa soo doortay shuruud la'aan bay ku soo doorteen waxaan qabyaalad la'aan bay ku soo doorteen
waxay ku soo doorteen inay shacabkii ayagoo dhib ka daalay oo diyaar ah oo bislaaday ayay shacabku iyagoon cidina qasbaynin ayagoo og qabyaalad iyo dhibaataday soo marisay waxay doorteen madaxweynahaas ay doorteen iyo dowladiisa iyo xukuumaddiisa maanta muddo 1 sano laga soo wareegay ayuu wuxuu yimid goboladii kale oo waddanku soo gaaray runtii aad iyo aad waan ku salaamayaa walaal boqorka beesha runtii waxaan aad iyo aad ugu faraxsanahay oo maaragtay si aan la qiyaasi karin aan ugu faraxsanahay walaalayaal waxa weeye soo dhaweynta lagu soo dhaweeyay madaxweynaha ma aha soo dhaweynka kaliya ma aha macnaha shucuurta shacabka markaan fiiriyo Soomaaliyeed shucuurta shacabka Soomaaliyeed ilaahay baa mahad leh waxaan ku guuleysanay oo maanta Soomaali hadaan nahay inaan nasiib ku leenahay ma aha shacab la isu soo ururiyay waad garanaysaan cadada shacabka soo baxay macnaha shacab la isu keenay oo la soo hagaajiyay ma aha waa shacab ay ka go'an tahay qarannimadu ay ka go'an tahay shacab ay qarannimadu ka go'an tahay weeyaan walaalayaal marka guushaas waa guul Soomaali u soo hoyotay dad baa wali waxay ku meeraysanayaan qabyaalad ku meeraysanaya laakiin sheekadu qabyaalad marka way ka weyntaa sababtu waxay tahay awal waxay ku ekayd xukuumad shakhsiyaad baarlamaan xagga iska daba wareeg laakiin maanta waxa barxadda taagan oo soo baxay oo maanta guusha wada oo guusha maanta ilaahay ka sokow mahad aan ugu celinayna waxa weeye waa shacabka Soomaaliyeed walaal shaagan maanta rognay oo dadku ay moodayaan dawladani inay dawladihii hore ay ka fiican tahay sheekadu sidaa ma aha dawladani waxa weeyaan dawladihii hore waa la mid laakiin shacabkii baan la mid ahayn taa inaan garanno weeye guushaas marka insha Allah tacaala aan hambalya idin leeyahay waxaan rabaa marka inaan wax yar oo arrin yar oo Puntland maaragtay soo dhaweynta madaxweynaha iyo Puntland inaan wax yar taabto anoo Soomaali weyn oo dhan salaamaya waxaan rabaa maanta wax yar inaan ka hadlo madaxweynihii hore ee dawlad goboleedka Puntland Cabdiraxmaan Faroole ayaa walaalayaal wuxuu qudbeeyay 2 qodbadood iska soo daba tuuray Cabdiraxmaan Faroole wuxuu ahaa madaxweynihii dawlad goboleedka Puntland buu ahaa runtii 5 sano haystay 5 sano shacabka Puntland waxay ahaayeen shacab runtii markaan idin sheego Soomaaliyeed sida ka muuqata shacab wanaag jecel shacab Soomaalinimadu ay dhab ka tahay shacab nin walba oo meeshaas maaragtay xukuumadda soo istaaga wax walba uu la yimaadaba ku taageero oo ugu samra weeye runtii waqtigii Cabdiraxmaan Faroole walaalayaal shacabka Puntland si fiican oo kal iyo laaba ay ula shaqeyn jireen waxa timid maanta in Cabdiraxmaan Faroole adeerkay uu waqtigiisa dhamaaday ilaa xukuumad walba waqti bay leedahay walaalayaal xukuumad walba waqti bay leedahay maanta maxaa Cabdullaahi Farmaajo ayaa wuxuu yahay madaxweynaha Soomaaliyeed federaalka guud ee Soomaaliyeed maxaa Cabdullaahi Farmaajo noo saas ay tahay waqti buu leeyahay annagoo jecel oo rabnaba waqtigiisa la gaaraya waa dhamaanaya qof kale oo muwaadin oo Soomaaliyeed baa imaanaya marka sheekada walaal meeshan taala waxay tahay Aamina Muuse ku soo dhaweynaya walaal sheekada meeshan taala waxay tahay adeer Faroole waqtigiisii uu dhamaaday waxaan meesha hadda jooga xukuumad kale oo uu shacabka Puntland doortay baarlamaanka Puntland ay doorteen xukuumaddaas oo Cabdiwali Cali Gaas uu madaxweyne ka yahay oo ah maxay ahayd dawlad goboleed ah waxa meesha lagu soo dhaweeyay oo dadka shacabka reer Puntland ay u tafaxayteen runtii oo aan ku amaanaya madaxweynihii Soomaaliyeed inuu yimid aad iyo aad bay u soo dhaweeyeen marka annagu hadii aanu nahay dadka Soomaaliyeed waxaanu ku jirnay runtii inaanu u hambalyeeyno shacabka Puntland waxaanu hadaan qurbahaanu anagu joognaa shacabkii gudaha ku jiray ma nihin dadka qurbaha jooga markay sidaydoo kala daawadaan waxa meesha ka socda jacaylka qarannimada ummadda u qabaan soo dhaweynta madaxweynaha la soo dhaweeyay iyo waftigiisa sida loo soo dhaweeyay gobolada kaleeto ama dawlad goboleedyada kaleeto oo madaxweynuhu u socdo oo uu socdaalka ku yahay sida isu sii diyaarinayaan oo qof walba oo maanta Soomaaliyeed uu raali uga yahay qarannimadii dadkii ay banaanka ka taagan yihiin qabyaaladii walaal banaanka qabyaaladii laga taagan yahay marka waxa weeyaan meeshan hadda arrintan aan ka hadlayo waxa weeyaan Cabdiraxmaan Faroole waxaan u sheegayaa waa oday Soomaaliyeed waana senator
waa oday Soomaaliyeed Puntland waxay u dooratay inuu aqalka sare ee Soomaaliya uu fariisto local weeye Puntland waa dawlad goboleed weeyaan Puntland waxa weeyaan waa dawlad goboleed kamid ah ummadda Soomaaliyeed marka waxa weeyaan Cabdiraxmaan Faroole hadalkan uu yiri oo runtii madaxweynihii Soomaaliyeed oo meesha fadhiya uu ka qudbeeyay runtii waxa weey xanaf buu leeyahay annaguna dadka wacyi gelinaya hadaan nahay ma aha kaliya kuwa maaragtay ay dadku inaan u sheegno dadka Soomaaliyeed inay noo siman yihiin runtii inaan u sheegno weey in qof walba oo Soomaaliyeed maanta ay dhamaatay waqtigii dadku ay danaysan jireen shakhsiyaadku waqtigii ay danaysan jireen maanta way dhamaatay sheekada maanta waxay taagan tahay walaalayaal sheekadu maanta waxay taagan tahay wax way dan guud bay taagan tahay qarannimay taagan tahay qof walba wixii uu ku xanaaqo ama wixii marka isaga anfici waaya waqtigii uu reason u raadin jiray ama uu madaxa u ruxi jiray ama uu dadka miiska u garaaci jiray lama joogo waxaan dhihi lahaa oday Cabdiraxmaan Faroole asagoo mahadsan shacabka Puntland oo uu ka dhashay iyo shacabka Soomaaliyeed oo uu oday u yahay oo uu kamid yahay waxa weeye maanta shaqada uga beegan inuu qarannimada waliba isagu waa senator kuma sii jiro aqalka baarlamaanku noo fadhiya waxa weeyaan hawshiisu Cabdiraxmaan maanta inuu matalo qarannimadii Soomaaliyeed halka inuu fariisto odayaasha Soomaaliyeed ee nabadoonnada ah inuu ka mid noqdo waqtigii xukuumadii uu isagu xukumay markaa oo dawlad goboleedka ahayd waqtigiisii waa la soo dhaafay madaxweynaha markaa dawlad goboleedka ah iyo madaxweynaheenii Soomaaliyeed oo iyo shacabkii sida wanaagsan u soo dhaweeyay iyo dadkii wafdiga ahaa oo la socday madaxweynaha walaalihii kale Soomaaliyeed oo martida ahaa kuwii shisheeyaha ahaa ummadii oo fadhida ayaa runtii waxaan sheegayaa oo maanta aanan qarinaynin inuu xagal daaciyay oo uu soo jeediyay laba qodob oo aan ku haboonayn waqtiga uu qudbeeyay runta markii la sheego qofku fikradiisa waa sheegan karaa waxa uu aaminsan yahay waa sheegan karaa xitaa wax waa mucaaradi karaa laakiin waxay Soomaalidu ku maamaadaa salaad walba waqtigeeda la tukadaa runtii waxa weeyaan Cabdiraxmaan Faroole waa oday Soomaaliyeed runtii maxay ahayd ma dhihi karno waxay ka noqotay way ka qaloocatay ma dhihi karno waqti aysan dhagaha dadka Soomaalida u baahnayn in la ismucaarado oo madaxweynihii marti u yahay ummadii Puntland deganeed oo xukuumadii oo dhan ay fadhido oo madaxweynihii mas'uuliyadda iyo hoggaanka wadanka markaa ee dawlad goboleedka Puntland runtii isaga loo doortay ayaa fadhiyay haddii ay tahay marka ka hadalka markii hore wuxuu ka hadlay aeroboorku ka hadlay walaalayaal aeroboorka arrintiisu waxa weeyaan hadda markaan tusaale u soo qaato annaga Soomaali hadaan nahay 30 sano oo aan burbursanayn maalinba madaxweyne ku meel gaar ayaa soo qabanayay marka mid walba ma aha inuu markuu soo qabto oo xilkiisu dhamaado waxnaha lagu dhaliilo laakiin qasab waxa weeye shakhsi kasta wax fiican buu sameeyay marka shakhsigii markay xukuumad kala timaado inuu intuu soo istaago uu yiraahdo war meesha anaa waa wax ka qabtay ama anaa bilaabay nin walba wasaarad walba la dhisay maxay ahaatoonay baarlamaanka aad aragtay xamarka aad aragtay oo maanta dawladdu ku shaqaynayso waad ogeydeen walaal waa la baabi'iyay intaaba waxa weeye madaxweynaha ka dambeeyay meel buu sii gaarsiinayay Cabdiraxmaan Faroole ma aha marka Puntland inuu maanta xilliga lagu jiro shacabkii Puntland oo mas'uuliyadoodii gutay oo madaxweynahoodii soo dhaweynaya oo waxaan ku iri maxay ahayd dabaaldegaya oo waxaan ku iri ummadii Soomaalinimo iyo qarannimo ay ka muuqato inuu intuu u soo fariisto runtii uu niyad jab ku rida ma aha sababtu waxaan u arkaa aniga Cabdiraxmaan Faroole qudbadiisu qodobo runtii aan dhihi karo way khaldan tahay xagal daacna way leedahay aeroboorradan iyo waxan uu ka hadlayna waxa weeyaan waa hawl maanta xukuumadda joogto ay faraha kula jirto cid rabta ha bilowdo anigu waxaan aaminsanahay inuu hawsha inta ugu badan xukuumadda hadda joogto ay bilowday laakiin waa dhici kartaa inuu isdhaho waxaan adaa maaragtay bilaabay ama adaa maaragtay hadalhaynteeda hayay wax walbo ay tahay waxa weeyaan waqtiga Cabdiraxmaan Faroole wuu dhamaaday
Soomaali haddaan nahay dhibaatada ma haysataa waxay tahay inaan xukuumadda la isku xushmayn oo aan xukuumadda lagu kala harin oo aan maamulka lagu kala harin walaalayaal sababtu waxay tahay madaxweynihii Puntland ay dooratay oo Cabdiwali Cali Gaas ahaa waa meeshii fadhiya hadday marka ka hadal noqoto wuu ka hadli karaa Cabdiraxmaan Faroole waxa weeyaan maanta waxa uu ekayd sida ay sharaftu tahay odaynimo iyo Soomaalinimo isagoo ummadii Puntland senator u ah isagoo oday Soomaaliyeed isagoo madaxweynihii hore ee dowlad goboleedka Puntland ahaan jira oo dadku ay sharaf iyo karaamo u hayaan inuu u qudbeeyo sida dadka kale ay u qudbeeyeen runtii oo ay maaragtay ay uga qayb qaateen sharafta laakiin wuxuu u hadlay anagu ma qarinayna dadka wacyigelinta wadaan nahay wax walba oo qaldan waa sheegayna sababtu waxay tahay waxay nagu noqonaysaa eex bay nagu noqonaysaa sababtu waxay tahay markaanu shalay ka hadlaynay wiilasha Soomaaliyeed ama dadka kale oo Soomaaliyeed oo mucaaradka ah oo khaldan oo aanu lahayn war hebel waa khaldan yahay war Cabdishakuur maaragtay Cabdiraxmaan Cabdishakuur wuu khaldan yahay war hebel fiqi waa khaldan yahay war xidig waa khaldan yahay war Umar Cabdirashiid waa khaldan yahay war hebel kale waa khaldan yahay maanta waa qasab waajibaad masaaran weeye inaan kullay anigu shakhsiyan baanahay waxaan rabaa inaan sheego Cabdiraxmaan Faroole hadalkiisu xagal daac buu lahaa hadal khaldan buu ahaa munaasabad aan ku haboonayn buu jeediyay mas'uuliyad isaga aan u oolinna farahu la galay anu isfahanna walaalayaal Cabdiraxmaan Faroole waqtigan xaadirka ah Puntland kama ah madaxweyne wuxuu ka yahay oday Soomaaliyeed senator weeye wuxuu fadhiyaa baarlamaanka Soomaaliyeed buu u fadhiyaa Puntland buu u fadhiyaa dadka Puntland baa doortay dadkaasi kala dambeyn iyo xushmad baa runtii ay sameeyaan waa inuu fahmo Cabdiraxmaan Faroole shacabka Puntland karaamada iyo soo dhaweynta iyo sharafta iyo odaynimada loo hayo runtii dhowr jeer baa waxaan arkay isagooba amoodid acting garaynayo inuu isagu madaxweyne meesha ka yahay magaalada Garowe la dhaho walaalayaal runtii aan idin sheegaya magaalada Garowe la dhaho waxa weeyaan waa magaalo madaxda dowlad goboleedka Puntland weeye Soomaali oo dhan baa marka welcome ka ah ma aha ninkii xoogaa xanaaqada inuu acting gareeyo inuu isagu meesha u dhashayo isagu uu meesha wax ka yahay oo dadkii kale ummadii kalena uu maaragtay ka saarayo oo uu leeyahay hebel halka waxba kama ah iyo waxba kama qaban karo waxaan runtii aad uga xumahay oo aan ka raali gelinayaa ummadda reer Puntland iyo dhammaan ummadda Soomaaliyeed qodobadii xagal daac lahayd ee Cabdiraxmaan Faroole runtii anigu aad baan uga xumaaday ma ahayn waqti ku haboon ma ahayn ummadii meesha fadhiday oo madaxweynihii Soomaaliyeed iyo shacabka aad ogeydeen siday u tafaxayteen oo sharafta lahayd runtii in niyad jab lagu sameeyo ma ay ahayn Cabdiraxmaan Faroole wuxuu kaloo ka hadlay taa kaliya ma ahayn walaalayaal wuxuu ka hadlay Somaliland weerarka ay soo qaaday dagaalka ay soo qaaday walaalayaal dagaalka ay Somaliland soo qaaday iyo weerarka ay Somaliland soo qaaday madaxweynaha dowlad goboleedka Soomaaliya madaxweynihii Soomaaliya fadhiya wasiirkii difaaca iyo ciidamadii ninkii haystay waxa weeyaan baarlamaankii Puntland baarlamaankii weynaa oo Soomaaliya ummadda Soomaaliyeed oo dhan way u jeedaan runta markaan idin sheego weerarka Somaliland ay soo qaaday inuu yahay weerar khalad ah inuu yahay weerar gardarro ah inuu yahay weerar bartilmaameed ah oo lagu soo bartilmaameedsaday imaatinka dhulka Soomaaliyeed uu yimid madaxweynaha Soomaaliya أنا waxaan dhihi karaa waxa weeyaan ula jeedo dagaal ah ma aha dagaal ula kac ah ma aha dagaal kama ma aha waa dagaal ula kac ah Cabdiraxmaan Faroole oday Soomaaliyeed weeyaan intaas oo sano siyaasi ah inuu maanta gar furo oo uu yiraahdo maxay ahayd dadka Puntland isma dhaqaajin karaan waxa weeyaan taasi waa gar waxaan u maleynayaa taasi waxay ka turjumaysaa feelingkiisa ka durjumaysaa isaga malaha yara xanaaqsan isaga yara dhaliilsan wax looma baahnayn waqtiga inuu dhaliishiisa iyo xanaaqiisa inuu ku dabaxo
hawl iyo mas-uuliyadaan isaga u oolin. anigu activistaan ahay, waxaan u hadlaa danaha Soomaaliyeed. cabdiraxmaan faroole runtaan idiin sheegaya Soomaaliya waxba la isuma qarqarinaya, anuu adeerkay yahay, magaalada Garowe aan ka dhashay, qabiilka uu cabdiraxmaan faroole yahaan ahay, mana aan u qarinayo inaan maaragtay isaga aan runta u sheegayo, inaan dhaliilayo labadiisii khudbo oo runtii xagaldaaca lahaa oo ku salaysnaa oo ummadii oo dhan ku noqotay niyad jab iyo hadal maaragtay aan munaasabadiisa ahayn, hadal meeshiisa waayay weeyaan. waxa weeyaan wuxuu soo tuuray hadal waqtigiisina aan joogin, meeshiisana aan ahayn. waxaan dadka reer Puntland ugu hambalyeynaya ama aan leeyahay waad ku mahadsantihiin walaalayaal dulqaadka dheeriga ah, tixgelinta gaarka ah oo aad samaysaan, ama kii xukuumad soo qabtay iyo kuwa hadda haya iyo Soomaalinimada guud. runtii waa dad aad iyo aad u dulqaad badan. waqtigii cabdiraxmaan faroole adeerkay waxaa jiray dad badan oo wax ka tabanaya, perfect ma uu ahayn, waxna wuu qabtay, waxna waa laga tabanayay, laakiin waa lagu xushmeeyay. 5 sano ayuu haystay, waa lagu xushmeeyay, cidina kuma carqaladaynin, cidina ma aqtin garaynin inay isaga challenge ku sameynayso, isaga madaxweyne ka daba tahay, cidina ma tusin inay garab ordayso. runtii dadku si samir leh oo wanaag leh bay waqtigiisa u sugeen. doorasho xalaal uu galay, doorashadii si xalaal ay ku dhacday walaalayaal, ummaddu si ay raalli ka tahayna cabdiraxmaan faroole waa looga guuleystay. odayga adeerkay waxaad moodaa xogaa inay uga go'an tahay meesha inuu weli isagu madaxweyne ka yahay. waan ka xumahay, sorry. cabdiraxmaan faroole mas-uuliyadiisa waxa weeye waa mas-uuliyad oday Soomaaliyeed weeye, waana senator matala shacabka Puntland, noona fadhiya baarlamaanka Soomaaliya. waxaan rajaynaynaa arrimahan lokaalka ah dowlad goboleedka Puntland inuu ka noqdo oday dhexdhexaada, inuuna u daayo oo uu ku tixgeliyo madaxweynaha maanta xukunka dowlad goboleedka haysta. runtii madaxweynaha Soomaaliya oo maanta Puntland martida noogu ahaana runtii waa inta kaliya oo aan dhihi karo annagoo ay noo shidan tahay. runtii markaa idiin sheegoon aad u faraxsannahay ummadii Soomaaliyeed oo dhan, oo beledweyne laga sugaayo, oo galmudug laga sugaayo madaxweynihii, oo ummadii oo dhan maqsuud tahay, oo ma aragtay runtii ummadii oo dhan ay u jeedo wanaagga dadka reer Puntland ay sameeyeen, qarannimada shacabka ka muuqata, sida ay isugu soo baxeen runtii oo ay u tuseen wadna saafi ah iyo rabitaan xalaala oo ka daacad ah inay dowladnimada iyo qarannimada Soomaaliyeed rabaan. aad baan uga xumahay khudbadii cabdiraxmaan faroole adeerkay. waxaan dhihi lahaa insha Allah tacaala waxa weeyaan hawl way u taalaa, hawl way sugaysaa. waa oday Soomaaliyeed, Soomaali oo dhan baa hawl baa noo taala. qofkii wuxuu qabta waaya hawl waa noo buuxdaa. nabadayn baa noo taala, shacabka isu keenidiisi baa noo taala, qarannimada in laga hadlaa noo taala, in baarlamaankii weynaa ee Soomaaliya ee uu fadhiyay inuu ka odayeeyo baa noo taala, inuu mas-uuliyadii markaa uu senatarka ahaa oo loo doortay hawshaa qabsadaa noo taala, inuu Puntland u dhashay oo uu gurigiisii iyo shacabkiisii uu niyad jabin oo uu niyadooda iyo wanaagooda ka shaqeeyaa noo taala. cabdiraxmaan faroole waxaan dhihi lahaa anigu runtii waan ku dhaliilayaa labadaas khudbo ee midda Somaliland oo ah weerarka waxa weeyaan waa dowladda ku-meel gaarka ah ee Puntland ayaa iskale go'aankeeda. madaxweynihii Soomaaliya meeshuu fadhiyaa, weerarka waa u jeedaa, Soomaali weyn oo dhanna way u jeedaan weerarka gardarrada ah. marka anigu hadda ku sii dheeraalmayo inaan tobigayga maanta ma ahayn inaan dagaalka Somaliland ka hadlo, laakiin waxaan rabay oo isoo geliyay inaan ka hadlo khudbada uu ka soo jeediyay cabdiraxmaan faroole. cabdiraxmaan faroole waxa weeyaan isagu ma lahayn khudbada, isagu ma lahayn go'aankaasna, isagu ma laha maamulkaas uu dowladda uu rabo inuu wax la maamulo na isagu ma laha. Garowana yuu aqtin garaynin adeerkay inay familka anigi isagu aan ka dhalanay inay Garowe leeyihiin. maanta Garowe waxa weeyaan waa magaalo madax weeyaan, magaalo madax baa loo doortay walaalayaal. Boosaasaa la geyn karay, Gaalkacyaa la geyn karay, Buurtilna la geyn karay. reer Garowe maanta waxa laga dhigay magaalo madaxdii Puntland, magaalo madaxdeena Soomaaliya oo weynayd oo guud oo xamar waa noo joogtaa, laakiin dowlad goboleedka Puntland ayay magaalo madax u tahay. qof walba Soomaaliyeed sida Salaad Cali Jeelle uu sheegay
qof walba oo Soomaaliyeed ayaa xamarna tagi kara garowna tagi kara maxay aheetoonay waxna xukumi kara waxna ka noqon kara meel walbana maanta Soomaaliya waa dhamaatay shakhsiyaad gaar ah inay daneystaan kuma sii talax tagayo in Cabdiraxmaan Faroole waxaan rabay kaliya inaan u sheego qodbada ka wareertay xagal daaca iyo inaan u sheego inaan aad iyo aad uga xunnahay runtii haddaan shacabka Soomaaliyeed maanta inay naga hortimaado wax la yiraahdo negative Soomaali maanta negative uma baahna anigana maanta waxaan diyaar u ahay inaan sheego walaalkay haduu yahay aabahay haduu yahay adeerkay haduu yahay inaan sheego qof walba oo Soomaaliyeed oo dantiisa u xanaaqsan waqtigii waa dhamaaday waqtigii dantaada kaliya ay soconaysay waa dhamaatay waqti Soomaalinimo lagu jiraa qarannimo lagu jiraa waxa lagu jiraa waqti maaragtay nin walba uu diyaar u yahay inay Soomaali dib u soo noqoto madaxweynayaal badan oo dawlad goboleedyo aba walaalayaal soo maray meeshan Soomaali galmudug bay soo mareen Puntland bay soo mareen Somaliland bay soo mareen nin walba markuu ka dagtay shaqadiisu maaha intuu dib u soo noqdo kii kale oo hayay inuu wax la maamulo laakiin shaqadiisu waxay tahay inuu ka mid noqdo muwaadiniinta meesha ku nool oo meesha jooga oo shacabkiisa uu la wado oo dawladda kaalinta kaga aadanna waxa weeyaan inuu ka odayeeyo wixii wanaaga uu ka wado uma baahnin dacfaruur uma rabno dacfaruur waa ku daalne sheekadan waxa weeyaan nin walba meel baan ka soo jabsanayaayo nin baan falaar ama qori ku taagayaa waa laga soo tagay Cabdiwali Cali Gaas waa shakhsi haday wuxuu yiri sanad baa u haray sanad haday u harteena waxa weeyaan ummadan waa soconaysaa mid kale la dooranaya dawladda Soomaaliya waa soconaysaa qarannimadu waa soconaysaa madaxweynahana waxaan dhihi lahaa Soomaaliyeed nasiibkeena maanta alxamdulillah rabbil caalamiin wuu soo noqday nasiibkeeni ilaahaygi subxaana qaadir aha umma biya raacinayo isma biya raac ummadu ma biya raac waligeed 30 sano dhibaato kuma jireyno ummadda Soomaaliyeed waxaan rajaynayaa qarannimada Soomaali guud ka muuqata soo dhaweynta ka muuqata daacadnimada ka muuqata walaalaha galmudug inay saasoo kale madaxweynaha u soo dhaweeyaan kuwa hiiraan inay u soo dhaweeyaan hirshabeelle inay soo dhaweyso madaxweynaha karaamada iyo sharafta uu u hayo shacabkiisa runtii waa nin ilaahaygi subxaana qaadir ahaa runtii waan u duceeyaa anigu qofka wanaagsan waa loo duceeyaa walaalayaal waa nin saqiirka iyo kabiirka Soomaaliyeed ay isugu mid yihiin walaalayaal waxaan rajaynayaa marka karaamadaas iyo sharafta uu madaxweynuhu noo hayo iyo xukuumaddiisa wanaaga ay u socoto iyo walaalayaal wufuudda la socda si calool wanaagsan sida Puntland oo kale in loo soo dhaweeyo rajadaasna waan qaba shacabka Soomaaliyeedna waan ku kalsoonahay waana u jeedaa hadda runtii dad badan oo isu sii diyaarinaya soo dhaweynta madaxweynuhu waa madaxweynaheeni wadankuna waa wadankeeni walaalayaal intaas baan leeyahay reer Puntlandna waxaan leeyahay qaasatan reer Garowe iyo maamulka Puntland guud ahaan hawl fiican baad qabateen gurmad fiican baa meesha ka dhacay Soomaalinimo fiican baad na tusteen alxamdulillah rabbil caalamiin madaxweynuhu wuu sii socday qardhuu tagay armuu tagayaa boosaaso insha Allah tagayaa wuu soo noqonayaa dhul oo dhan buu marayaa galkacyu tagayaa galmudug buu tagayaa hiiraan buu tagayaa ma sha Allah tabaarakallah ilaa uu magaalo madaxdii ku noqdo maanta dadka Soomaaliyeed waxa weeyaan waxaanu nahay far iyo faraantigeed ma ay kala haraan far iyo faraanti ku dhagan oo aan laga bixin karin bay dadka Soomaaliyeed baan ka rajeynaa Ilaahay inuu ka dhigo waxyaabahan maaragtay xogaa markuu nin xanaaqada uu isku dayayo inuu wax maaragtay kiciyana taas maanta Soomaali way ka dhantahay nin walba meeshiisaan ku qabanaynaa kii qalad yara aan ku aragna bartiisaan ku qabanaynaa runtii Cabdiraxmaan Faroole hadda ka hor kama hadlin maanta waan ka hadlayaa sababtoo waxay tahay xaq uu leeyahay in waa muwaadin Soomaaliyeed wuxuu ku qaldan yahay waa loo sheegay aad buu u dacweyn yahay runtii xushmad gaar uu naga mudan yahay age-ka ama da'du waxyaabaha bini aadanka lagu tixgeliyay ka mid tahay oo lagu xushmeeyo xushmad baanu siinaynaa laakiin runtii waraysigaas labada waraysi oo iska soo daba tuuray xagal daac bay ahayd anigu kulli qaasatan hinda ahaan waan dhaliilayaa waxa weeyaan waqtigeedii ma soo tuurin falaar buu soo tuuray waqtigeedina ma soo tuurin meeshii la rabeen adeer laba aadan helin waxaan dhihi lahaa raali gelin ka bixi
madaxweynihii Soomaaliyeed iyo ummadii shacabka ahayd iyo dadkaagii iyo dalkaagii runtii waqti xagaldac la soo fariisatid ma ahayn aeroboorka laga dhisay magaalada Garowe waxa weeyaan waa aeroboor ummadda Soomaaliyeed oo dhan insha Allah ay ku intifaaci doonto haddii aad adigu wanaag ka geysatay waqtiga xukuumadda haysatay oo adigu aad wax ka soo qabatay ama warqad ka soo saxiixday ama dhagax ka soo dhigtay ama dhismaha wax ku lahayd waxa weeye waa weldan waa wax adiga waajib ah oo markaa ku saareyd nin Cabdiwalina si gaar ah looguma mahad celinayo waa waajib saaran kan imaan doonana waajibkaas oo kala walaalayaal saaran oo nin walba 4 sano ama 5 sano markuu dhamaysto wuu tagayaa muwaadil kala imaanaya marka waxa weeyaan aeroboorkii ana waa maaragtay markaan joogay baa la magaciisiye aniga maaragtay magacayga ha lagu qoro walaalayaal ende waxa weeyaan adeer waxaan dhihi lahaa adeer sorry adeer waxa weeyaan magacaaga adigu kuma dagaalami kartid magacaaga waa shacabka Soomaaliyeed ama shacabka Puntland ee meesha ku nool wixii ay markaa isku afgartaan oo ay raali ka yihiin ayaa la sameynaya waxaana lagu qoray muwaadil Soomaaliyeed oo runtii u qalma alla yaa raxmaan raximin wuu dhintay maxamed abshir nin Soomaaliyeed oo mas'uuliyad guud oo Soomaaliyeed soo qaaday buu ahaa nin wuxuu ahaa runtii u qalma in lagu magacaabo insha Allah taala adigana adeer waxa imaan doona waqti ay ku gartaan ummadda Puntland ama ummadda Soomaaliyeed iyagu ay karaamadaada ama sharaftaada wixii ay u gartaan hada aeroboor hadda maanta hadii la dhisay boqolaal wax baa la dhisi doonaa marka runtii waxaan dhihi lahaa raali gelin ha ka bixiyo Cabdiraxmaan Faroole arrinka raali gelin ha ka bixiyo annagu ma qarinayno anu adeerkay yahay runtaan idin sheegaya lafta uu yahay ama qabiilka uu yahay baan ahay magaalada Garowe dadka u dhashaanahay intaan Cabdiraxmaan kan jooga xamar aan wax ka sheego oo aan magaciisa soo qaado oo aan dhaliishiisa sheego kan meeshayda ka dhashayna ma qarinayo balaayay ka tahay hadduu 9 jiro iyo hadduu 2 sano jiro iyo hadduu 20 jiro dhaliishiisa waa sheegaya adeer Faroole jartu waa ka qaloocat waana kugu dhaliilaynaa raali gelin ka bixina waa ku leenahay ummadda Soomaaliyeed uma baahna nin dantiisa gaar ka hadla odaynimadaada iyo Soomaalinimadaada ayaanu kugu qadarinaynaa hawlna waad noo haysaayo senator baa tahay hawshaada ku ekow hawsha tani ninkan hadda meesha jooga ee Cabdiwali Cali Gaasa ayaa wuxuu yahay dowlad goboleedka Puntland madaxweynaheeda waxaan u maleynayaa xaajiga in arrinka loogu celceliyo u baahan yahay hawsha ka har adeero macaan ka har hawsha isaga har talada isaga har wadanka Soomaaliya la yiraahdana madaxweynihii Soomaaliya maxaa Cabdullaahi Farmaajo iyo wafdigiisi waa fadhiyaan marka dadka Soomaaliyeed guushooda iyo hankoodu inuu dib u noqdo ma aha runtii aad baa waxaan ugu muna aniga kulay aadaan hinda ahay aan uga helayaa sida walaalayaal Soomaalinimada leh oo ummadaasi maaragtay aad sida ay isugu soo baxeen ما هذا أفر حبة يشن حبة الله يسكنه وأتقرن كرتان ومدو سيدا جعيلك إيو ما ضد واحد موضيا فرماتك لي إن تشعليها ما جعيلك فرماتك لي معها ومدي واحد صون نقدي والنهادي ومدي واحد صون نقدي كرامة هذه ومدي واحد كدق من حمانتي ومدي وين ندي في جرودي والنهادي ومدي وفر ما مركب ما جرت واحد الله يسمى قرينيو dad baa waxay ku leeyihiin odayga ha ka hadlin odayga waa laga hadlaya odaygu wuxuu la mid yahay kuwa mucaaradka ah oo aanu maalin walba ka hadalno la mid yahay anuu ixigaa iyo anuu yahay dadkayga iyo anuu waxa waa dhamaatay cidna u joojin mayno cidna kollay aniga iska hadlaya wiilkayga haduu yahay aabahay haduu yahay walaalkay haduu yahay waxa weeyaan qofkii isku daya inuu xagal daac sameeyo bartaasaan soo saaraynaa walaalayaal uma baahnin maanta in la kala daadsho uma baahnin kala daadashada iyo hadba mid qof markuu xanaaqaba maaragtay inuu dantiisa ku soo meereysan jiray waqtigaasi waqti horay ahayd waa dhamaatay xoogaa odaygu hadduu xanaaqsan yahay sorry baan leeyahay hawlo badan baa u qabya ah
adeerkay howlaha ha qabsado insha Allah waa loo baahan yahay lagama maarmo oday Soomaaliyeed weeye wadanka waxba u soo qabtay wuu ka soo shaqeeyay dawlad goboleed buu madaxweyne u soo noqday oday Soomaaliyeed oo maanta taladiisa iyo hadalkiisa loo baahan yahay weeye laakiin barta looga baahan yahay hageeyo ninkana mas'uuliyadiisa hadaayo oo uu madaxweynaha u yahay iyo umada dad dooratay hadaayo odayga ilaahay dhowr jeer baan anigu runtii aan dhaliilay oo waxaan arkay isagoo acting garaynayaba inuu meesha ta isagu xukumo hadda oo inta wax qaloocinayo wariya islaan gar ilaahay bay taqaan gartu gurigeeda u hoyataa ya gartu gurigeeda u hoyataa marka odaygan adeerkana ma aha inuu acting garay 5 sano waa dhamaatay hawshan maanta Puntland taala waa hawl u taala xukuumadda maanta Puntland ka jirta dawladda Soomaaliyeedna Puntland waxay ka tahay cirif yar oo ka baxay bay ka tahay dawladda Soomaaliyeed waxa weeye waa jiridiis qaranka weeyaan Puntland cirifkaasay tahay dad waxa ku nool Soomaaliyeed qarannimada jecel dadnimada jecel ummadda hal daayo ummadan la juqjuqaynayo hal daayo aeroboorka cid lagu magacaabayana dawladda iyo shacabka Puntland baa go'aamiyay mid karaamaysan oo oday Soomaaliyeed oo mas'uul soo qabtay baa lagu magacaab adigana biidmillaahi karim waa imaan doonta waqtigaagu waa imaan doonta hadda waaba noo shaayba maxaa wax lagu magacaaba bal horta qofkii markuu dhintaaba wax lagu magacaabo anumada ara qof nool wax lagu magacaabo nin walba waxaan kugula kaftamaya bal dhimo horta kulay waa la wada dhimanaya habaar ma aha markaas insha Allah adna wax lagu qori doonaa aad iyo aad baan labadaadi qodbada aan uga xumaaday runtii sababtu waxay tahay waqti dadku niyadoodu aad u fiican tahay oo aad u niyad fiican yihiin baad la soo doonatay baad laba falaarood oo meelay u socdaan aan la aqoon baad adeer u soo dhex dhigtay bag of adeer naga raali oo hawl way noo taala hawshaada dhinaca ka qabso waxaan kaloo aan sheegayaa colaadda walaalayaal Somaliland ay soo cusboonaysiisay oo ay la soo beegsatay xilliga kan dadka Soomaaliyeed ee danahooda iyo qarannimadooda iyo wanaagooda iyo Soomaalinimadooda ay wataan oo uu madaxweynihii salaan iyo ummadii inuu gacan gaarsiiyo oo lugtiisa ay ilaa ninku markuu meel xukumo meesha adigu aad xukuntid adaa laga rabaa inaad maaragtay meel walba tagtid aniga hadda ka hor markii aan hadlaayo waxaan madaxweynaha ay dad igu soo dhaheen inta waa hadlaysan dawladdu ma tagta meelahaas marka maanta aad baan ugu farxay runtii marka idin sheego hadalkii aan irina waxa weeyaan wuu tagi doonaa madaxweynaha waqti hal la siiyo de waqtigii baa yimid wuuna tagay wuuna ku mahadsan yahay ummadda Soomaaliyeedna sidii u soo dhaweeyeen way ku mahadsan yihiin insha Allah tacaala hadalka ma saarnaanayo reer Galmudug reer Hiiraan Soomaali weyn oo dhan waxaan leeyahay madaxweynaha waxa weeyaan sida aan ugu taagnaano waxaan noo balana Soomaaliya qarannimo Soomaalinimo qaraxaasaaba hadda soconaya qof walba farta kor u taagana wala soo qarxinaya wala soo dhajinaya cid loo qarin mayo waxaaba horta amarkuba wuxuu nagu dhacay waagi aan wax isu qarqarin jirnay waa la soo dhajinaya hadda kii wax yar oo xagal daaca sheega subaxii waa dhagan yahay kulay aniga xagayga waa ka dhagan yahay waxba ma qarinaayo dad baa hadda eedayn doono dhii doono odayga adeerkaayo maxaa ula hadashay war waa dhagantaan ku dhahay hooyaday hadday tahay waa dhagantahay waa soo dhajinaya sababtu waxay tahay ma doonayno waanu ku daalnay xagal daac waanu ku daalnay xagal daac hadal xanafla waanu ku daalnay hawlo lagu galgasho waanu ku daalnay dadkiiskaasaa socda nin walba oo Soomaaliyeed waa isugu kay mid aniga kan xamar wax ka soo qasayana waan soo dhajin kan Puntland wax ka qasayana waan soo dhajin hasaa la ogaado dadkayga aniga aan ka dhashay kuwa isku soo dayi doona inay intay hinda soo wacaan ay dhahan maxay odayga uga hadasho waxba ay soo lugoynina aniga waa dhagantahay hooyaday Faadmo bidhaan baa la dhahaa adduunkaan ugu jeclahay dawladda haday wax ka sheegto subax dambe waa soo dhajinaya iyada barnaamijka ku saabsan yahay cid loo joojinaya male walaaliyaal ma rabno hadal xanaf la waa ku daalnay
hana laga joojiyo sidaas hawshu noogu soconaysa 30 sano ku jirnaa ma kala duur un baan ku jiraynaa madaxweynaha waa ku mahadsan yahay booqashadiisa xukuumadda Soomaaliyeed oo madaxweynuhu uu hogaaminayo iyo wafdiga la socda waxaanu leenahay waad ku mahadsantiin waajibaad leedinka fadhiyay baad gudateen shacbi weynaha Soomaaliyeedna aad iyo aad baan ugu mahad celinayaa sidii qarannimada lahayd sidii Soomaalinimada lahayd sidii la sugayay sidii laga filanayay bay sameeyeen aad bay ugu mahadsan yihiin xukuumadda ku meel gaarka ah waxaan dhihi lahaa dawlad goboleedka Puntland maamulkeeda iyo madaxweynaheeduna way ku mahadsan yihiin sida ugu tafaxayteen isimada iyo boqorka daarood ilaahaygiis qafuur raxiim ahaa oo umada uumay baa boqor burhaan isimada reer Puntland dhamaantood odayaal gabdho caruur oo isku duuban waajibkiina baad gudateen shukr ala waajib waa wax idin saaran bay ahayd maxaa Cabdullaahi Farmaajo ma aha shakhsi iskiis u socda waa madaxweynihii Soomaaliyeed waxaan sugayaa sharaftaas oo kale insha Allah waxaan ka sugayaa walaalaha reer Galmudug waxaan ka sugi doonaa insha Allah walaalaha reer Hiiraan waxaan ka sugi doonaa walaalaha Hirshabeelle waxaan ka sugi doonaa Soomaali weyn oo dhan baan waxaan ka sugi doonaa qalbi wanaaga insha Allah taala madmadowgana Allah naga saaro madmadowga Allah naga saaro waxa laga yaabaa markii la hadlayana inay xoogaa iska imaan karto mararka qaar kood hadallo maaragtay qalqalooca in laga hadlo laakiin guud ahaan ujeedadaydu saasi isugu biyo shubanaysa ujeedadaydu waxay isugu biyo shubanaysaa inaan la aamusaynin oo wax walba oo qalooca la sheego sida aanu u sheegno maalin dhaweed baa waxaan ka hadlayay ninka la yiraahdo Cabdiraxmaan Cabdishakuur baan ka hadlayay shakhsina xaq uma laha qabiilna xaq uma laha in galigood dabada la haysto oo saa loo haysto ummadda Soomaaliyeed waa isku mid walaal kulli aniga iyo dadka ilamida oo dawladnimada iyo qarannimada ka shaqeeya waa isugu kaaya mid ummad qof walba oo aan wax ku aragno waxaanu leenahay hebelow maanta waanu ku saluugsanahay waxaasanu kugu aragnay naga joog biliis uma baahnin bartaada fadhi insha Allah taala qof walba dantiisa Allah garansiiyo ummadda Soomaaliyeed oo soo gashay walaalayaal waxaan idinka codsanayaa si share garay ilaahay idinkiisa barnaamijka noo share gareeya wixii xumaanaha ku jirana insha Allah taala shaydaan iyo naftayda ahaatay wixii wanaagana ummadda Allah sulansiiyo Soomaalilandna waxaan leeyahay waxa un kulli walaalayaal aad raadinaysaan waa dagaalna waad garanaysaan idinma sheegayso dhibaatadiisa waxaan aad iyo aad ugu hambaliyeenayaa dad badan maxay aheetoonay oo reer Somaliland oo aan ka fiirsaday baraha bulshada oo ka hadlaya dagaalka oo runtii ka xun colaada iyo dagaalka uu Muuse Biixi oo iyo dandaansiga uu wado oo ka xun marka shacabka walaalaheena oo reer waqooyiga ah ma wada dhaliilayno mana wada dhahayno waa wada xun yihiin mana wada dhahayno waa wada xumaan doon runta markaan u hadlay indhahayga waxaan ku arkay kuwa dhahaya anagu Somaliland baanu ka soo jeednaa ama waqooyi baanu ka soo jeednaa waana ka xunnahay maanta carqalada iyo colaada la wado dhahaya kuwaas oo kale marka ma aha inaan lugta ku walaaqano oo aan dhahno maxay ahaatooni kulli waa wada xun yihiin insha Allah taala Muuse Biixina waxaan dhihi lahaa insha Allah taala shaqada ku qabyada ah waxay tahay inaad ummadda dawlad goboleedka Somaliland ummadda ku nool inaad xuquuqdooda sintid inaad iyaga u talisid inaad iyaga dhexdooda aad xarxaartid cadaalad darrada dhexdooda aad ka samaysay oo ka jirto oo hadda cad oo muuqata inaad hawsha fushatid hawshatan aad soo durdurinaysid oo meelaha ku soo ordaysidna dani kuuguma jirto iska daa adigu haddaan nin dagaal tahay ama sheekadaadu ay tahay anigu asagu horuba u sheego wuxuu yiri anigu haddaan meesha soo koro waa dagaalamaya يا قبر باي عايس هدى عبد الله هدى وحبها يا عاير أنا جينا أدير حوا حاسكون نقول ميان شرموطة واحد سوق ريسي وحبا كان في ميان مصبيحي وحويان سجى أفكيس كشيء وحير وان دجال ميان مركا دجال ندن ومشرته ما هو كسو أرضيانا وعدجال دجالنا وحن ملاينا يا إنا شعب كرر بقوي ويكدر كسيهين هذا ديار روتين ولا هذا بدين عنا وقحدان وهذا ما الله عرره وحويان كوا ونكسن بس صار ليه
kuwa dagaalka iyo xumaantada iyo qabyaaladu ay weli ku jirtana waxaan leeyahay waa khaldan tihiin kuwa wanaaga jecelna waxaan leeyahay Muuse Biixi iska qabta iyo siyaasadiisa Muuse Biixi iyo siyaasadiisa iska qabta shacabka Soomaaliyeedna way u jeedaan dandaansiga madaxweynihii Soomaaliyana wuu fadhiyaa arrintan wuxuu ugu talagalay weerarkanna wuxuu ugu talagalay waa carqaladaynayo jiritaanka Soomaaliya sababtu waxay tahay madaxweynihii Soomaaliya meesha joogta baa jooga marka wuxuu waa carqaladayn iyo dandaansi iyo juqjuqayn taasaan isagana kale leeyahay waxaan leeyahay taladaadu waxay nabad ha ku ekaato waxaad nabad ku weeyday dagaal kuma helaysid Cabdiraxmaan Faroolana waxaan leeyahay hadalkii yaraayo oo jilicsanaayo oo uu yiri maxay toonay xagga yaa la iska magaciisina ummadda Soomaaliyeed ama Puntland deegaankeedu xaq bay u leeyihiin inay istifaacaan laakiin cidna in la weeraro oo gartaro lagu weeraro ma aha anigu haddii Puntland hadda weerar sameyn lahayd gartaro ana sidaasaan u dhaliili lahaa runta markaan idin sheego sababtu waxay tahay waqti aanu dagaal iyo firgasho aanu ku jirna ma aha laakiin Puntland hadda waa la soo weeraray xaq bayna u leedahay inay istifaacdo hawshaasna waa hawl u taala maamulka Puntland insha Allah ta'ala Ahmed Ducaale waa aytamaya Allahu Akbar iska caytan Ahmed Ducaale in baa tahay xishood marka waxa weeyaan walaalayaal sidaasaan idin leeyahay ummadii qabyaalada ku jirtana ilaahay qabyaalada ka caafiyo markaan Faroole markaan ka hadlayo kuwa ii jiibinayay oo baahada ay caayay sababtu waxay tahay xoogaa waxaan faraha la galay Somaliland baan faraha la galay Allahu Akbar ilaa ummadda caafi walaalayaal anigu cidna u joojin mayo ka anigu hadda aan haystay odayga aan haystay adeerkay weeyaan Muuse Biixina waxaan ka sheegayaa Somaliland hadii gartaro lagu weerarana waxaan leeyahay Somaliland waa la weeraray gartaro lagu weeraray Somaliland hadii gartaro soo sameeysan waxaan leeyahay waa soo gartarootay tanna waa mid iska cadaan oo loomaba qarin karo iyadiyo cadaan iska soo weerartanto hadda aad u jeedaayo cidina aan waxba yeelin bay iska soo duushay meesha iska timid marka waxaan dhihi lahaa iyaduna Somaliland ma wada xumee dagaalkan raali kama wada ahe Muuse Biixi iyo xirtiiso sheegaanta nimanka la yiraahdo nimanka sheegaanta la yiraahdo isdajiya caadi iska dhiga waxa weeyaan hawlo badan baa dadka waqooyi ka kala daadsanay hawlaha u ururiya oo hawlaha qabsada meelaha kale aad ku soo ordaysaan idinku ma lihidin maxay ahayd toonay colaadan aad ku soo ordaysaan waxba ka faa'iidi meysaan sidaasaan uga baxaya insha Allah ta'ala adeerkay Faroolana waxaan leeyahay raali gelin ha ka bixiyo dalqaafka raali gelin ha ka bixiyo ummadda Puntland oo hadda uu madaxweynuhu ku dhex jirana waxaan leeyahay iyo xukuumadda dawlad goboleedka Puntland waxaan leeyahay walaaliyaal waad mahadsantihiin hawshiini iyo waajibaadkiini waad soo gudateen dadka kaleeto oo madaxweynaha ku soo socdo oo walaalahayna sidaan hore u soo sheegay madaxweynaheena hana loo soo dhaweeyo madaxweynihii Soomaaliya weeyaan shacabka Soomaalina guul baan leeyahay ilaahay subxaanahu qaadiraha maanta guusha aan taaganahay nasiibana mahad leh والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صومالي يقول إن شاء الله أقول يقول إني ما إذن كتجيه.